wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiwahaab Cabdulaahi Maxamuud ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda ay xoojinayso xiriirka wada shaqeynta ee kala dhexeeya hay'adaha garsoorka si loo helo garsoor cadaalad ah. Waxa uu sheegay in iyaga ay fulinayaan amarkii madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo ay hakiyeen dacwadihii la xiriiray dhinacyada dhulka ah ilaa inta laga gaarayo xal waara maadaama ay soo bateen isqabqabsi dhinaca dhulka ah. Ugu dambeyn, wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed Soomaaliya ay go'aansatay in la helo garsoor cadaalad ah kaasoo si wanaagsan ugu adeega bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo hadalka u dhigay wasiirka, anagoo ka jawaabayna baaqii madaxweynaha dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Laftagareen ee ahaa in la helo garsoor u adeega bulshada, waxaan xoojinay wada shaqeynta ka dhaxaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha. Waxaan hakad gelinay qabashada dacwadaha dhulka ilaa laga gaaro xal waara maadaama isqabqabsiga dhulka uu yahay 80% dacwadaha ay qabtaan maxkamadaha lagana dhameystirayo sharciga dhulka ee hor yaalla golaha wasiirada kadibna la horgeyn doono baarlamaanka. waxaan si joogto ah u booqanay maxkamadaha iyo xabsiyada si aan ula socono baahiyooyinka iyo caqabadaha halkaas ka jiro iyo sidii wax looga qaban lahaa. waxaa si xoog leh u socda wax ka beddelka garsoorka guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, taasoo uu hormuud ka yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, annagoo kaashanayna deeq-bixiyaasha caalamiga ee daneeya arrimaha garsoorka si loo helo garsoor hufan kana madax